بسم الله الرحمن الرحيم waxaynu ku soo jirnay xiriirkii xiisadaha waa darsigeeni 13aad wuxuu maanta noqon doonaa sida hal maado loogu dhigo laba galaas oo kala duwan maalin walba ashirkan wuxuu xiriir la leeyahay oo uu la mid yahay keenii hore oo kale darsigeeni 12aad aynu soo marnay ayaa uu la mid yahay ee ahaa sida loo siiyo laba maado oo isku xiga hal galaas ama laba galaasba waaye kana wuxuu noqonayaa waa hal maado ayaa laba galaas loo dhigayaa oo kala duwan ani waxa weeyaan maadadan ayaa labadan galaas la doonayaa inay u soo noqoto maalin walba jadwalkeena soo furno waxaan soo furanaa halka calaaqaadka waxaan tagayaa idaafa waxaan tagayaa ikhtiyaar mawaad maadada culumkan ku dhufanaya tusaale ahaan muwaafiq baan leh waxaan tagayaa ikhtiyaar tagyiir fusuul labada galaas ee ugu horeeya aan doorto موافق بان لي هل كان وحن كدغيا دقيق علامه دي هل كان وحن دغيا اون كينيا هل كان هذه الماده لا بد ان تكون في نفس الحصه يوميا هوشا قبت معنيه wax weeyaan maadada culum labada galaas ee awal thanawiga ama wananka ألف كودا يبادودا لبدا جلاسبا وحلا دوني إن مادة مالين والبا أي سرعة عضو مركانو يشو أول ثانوي ألف سيدو كلا ينين الحيسات كلاو يشو أول ثانوي با إن أساس هو كاي رعال وحديبا مالي بالمها قاركو تضي كريار تقال وحديبا مالي موافق بان لي موافق بان لي إن شاء جدول كان سمعيه واي بل هذا انتقنا معاينة مركز نساو تقنوه وعن كل فانا معلمين تبان ايجي جدول كود بان تقيا معلم اللغة العربية لقي واكي ومعلم كان علي قال لاني هذا ايه ما انت حضا لابد جلاس باللغة العربية هو ذا اللي واي مال انت كلاء خميستنا لابد جلاس هو ذا اللي مال انت سلاسة يا مال انت سنينتا ايام بجلاس اي كجد عضي ها انت سنوح لبا ماله لكن مهمة وحويان ان سيدا بدن حيسداس لبدا جلاس اي سرعة عضو